waxaan ku tusayaa website kan day inta uu imaanayay this waxa la yiraahdaa monthly visit waxa weey inta qof soo booqanayso ala bil basay ala bil website kan website Soomaali ku kala ku soo wada website kan dasayan ugu yaraan waxa soo booqato markii bisha 150,000 haduu soo yara dhacay inta halkan maraya tusaale haduu maraya 53,000 oo waxa weey waa ala bil website kan ku tusaya wuxuu gaaraa over 400 gaaraa 400,000 ya bish soo booqato laakiin aan xaalkan hadda la joogo bishan dhaxdeeda waxa soo booqatay 310 qof ka socokaas ku kala ku tusaya website kan waxa soo booqday arkaysa 10 milyan ah soo booqatay bishan waa bisha hore Marso Abriil May waa kan markaa arkaysa May bisha hore May waxa soo booqday monthly 9.3 milyan soo booqday arkaysa website-yahan qaabka loo sameeyo iyo waxaan ku hayaa qaabka lacagta looga sameeyo kuna soo dhow marka halkan waa Soomaali online money meesha nooga baratay mar walba inaan kugu soo gudbino mar walba aan nagala socotiin waxyaalaha qaabka looga sameeyo online ka lacagta haday YouTube tahay haday affiliate marketing tahay oo ka maxal hore uga hadalnay haday tahay shaqooyin kale oo fudud oo freelance lagu shaqeynayo wax walba meeshan qaab kasto lacag lagu soo gudbiyo waa idin heena meeshan mar walba waxaan soo tijaabinay idin soo gudbinayo waxaan anaka aan soo tijaabinin in ma soo gudbina taas idinka marqaati nooga mar walba ina account kanaga idin tusno sida anaka intaan ka sameeyaan habadna tahay yaraato ma qarsanayna wax walba toos intuseena si markaas idinkana meesha aad ugu logweyn video ka hore waxaan ugu sameeyay meelaka website waxa jira been dadka ka ku been abuurtaan waxbana aan laga sameeyay kuwaasna waa soo bandhignay inay been yihiin kuwii saxdana waa saxdan ka dhignaa kuwii beentan been wayaan dhahnaa simcinaha Soomaalida dhalinyarada aan loogu lugon waqti looga lumin meelo kala jira oo lacag badan laga sameeyay iyo meelo kale oo aan soo wadno kuwa hore aan kugu sheegnay iyo kuwa aan soo wadno kulli oo kuwa annaka aan tijaabinay lacagna aan ka sameeynay idinkana aan la jeclaanay inaad idinkana wax ka sameeysiin noloshina isku bedesheen haana ilooben waxa jiro waxaan kala sameeynaa hadda sameyn bilownay in amal marin aan bilownay lacag $50 bilaash aan bixinayno aan siinayna macaamiishanada nagu xiran baa taasna mar walba sii rabnaa lacagtaasna way badan doontaa way socon doontaa ka qayb qaadasho waa mar walba linkiga loo qayb qaadanahay qaybta hoose aan ku soo dhigi doono ama comment ugu horeeyay Facebook groupna waa jira oo Somali online money oo private public ma waa private dadka linkiga haysta bas ku soo beeri kara cid kasta inay ku soo beerto dooni meen way xarna asxaabtaana nagu xiran in waxyaalaha macluumaadka saxda noloshooda ku bedeli karaan inaan la wadaagno mar walbana aan siino oo micnaha dhiirigelin aan uga dhigno give away-gaas lacagaas abaal marinta waxa la leeyahay waa test yaraan siinayna test yarkan dii lagu ku gudbaan oo ahba test weyn maaha channelku ku soo biraya laba meel kale oo loo diraya waxa weey give away qaab loogu biraa jirto channelkaas kala saaraysa videos aad daawanaysan like saaraysa weynaa ku guuleysan in noqotina waxa weey nasiibkaada mar walba ku xukumo okay aan guda galna cashirka waxyaalaha qaabka lacagaha lagu sameeyo meel u badan yihiin website-yaha ugu badan haddii aad tusaalaan kaaga soo qaado blog waxa la yiraahdaa waxa way jaalaha la qoro waxa qoraysa article qoraysa ama waxa qoraysa maqaal af Soomaali midka u garanaysa maqaal ba qoraysa maqaalkaas lacag ka sameynaysa sida maqaal lacag u sameynaysa waxa arkaysa meeshan meel aad garanaysa waxa la yiraahdaa waa caasimada.net way caasimada.net way wax kale ma soo galiyaan video ma soo galiyaan kale ma soo galiyaan soo galiyaan oo maqaal si fiican iskaga eeg waa caasimada.net way waxa arkaysa u maleynaya caasimada.net halkan waa bah la yiraahdo Chrome extension waxaan ka qaada qayb daashan ku duubayo Chrome extension ma leeyahay balkan wuxuu sheegaya page kan iyo website kan soo booqashada dad intee leeg iyo xisaabiya mar walba waa soo dejisan kartaa oo Chrome waxa la yiraahdaa similarweb.com tagaysa soo degsanaysa mar walba dalban ka tusoo doona qaabka loo soo degsado halkaas koro ku leeyahay icon ku leeyahay markaad kaas ku dhufatidna wuxuu ku sheegayaa page kan website kan inta soo booqato bounce rate-kiisa ma sha Allah aad u fiican yahay page by visit monthly visit waa 1.8 million ma sha Allah marka qaabka marka lacagta ooga sameeyaan aan rabaa marka inaan wax yar ku tuso qaabka wax lacagta ooga sameeyaan yaan rabaa inaan ku tuso wax yar okay hadii meesha aan tagno qaabka lacagta ooga sameeyaan halkaan ku qoran waxa ugu qoran tahay waxa weey ayaga waa information macluumaad soo gudbiyaan macluumaadka ay soo gudbiyaan bas iyo lacagta ooga sameeyaan oo halkan waxa arkartaa waxa weey markii aad soo gudbisid oo maxalla soo qaadid oo article soo gelisid ama macluumaad soo gelisid macluumaadkaas dhaxdiisa yaa waxa ku sameynaysa
waxa ku sameynaysaa waxa lagu dalbada AdSense dad hore u taqaaneen dad aqooninba AdSense ayaa lagu xistaa ka bacd markaad AdSense aad ku cusatid oo Google ku aqbalo Google AdSense jiro markuu ku aqbalo Google AdSense kan wuxuu ku aqbalayaa kaliya bas in 12 post ama 15 post ay ku jiro website-kaada 700 dheerarkooda uu leeyahay oo eray xaraf maaha eray waxa weeye inta isku xiran bas eray leeyahay waxa arkaysa halka meeshan waxa ku qoran highest earning bloggers ragga macnaha oo blogyada ugu badan hadda most intaan magacyahan oo website-yo hatta adiga waa fiirin kartaa intaan iyo sanad ka sameeyaan waxa waa lacag ka sameeyaan wax kale oo ma sameeyaan meeshan hadda midda hadda aan fiirinayno waa arkaysa umayna meeshan qaybtan hadda waxaan hadda arkaysa waa wada xayisiin waxaad ishaada qabanayso waa xayisiin special waxa waa xayisiimahan iyo lacag ku sameeyaan waayo kun qof ay imaanayso kun qof 10 cent ilaa iyo inta u dhaxayso ilaa $10 u dhaxayso qaarkood waxay ku xiran tahay qofka wadanku ka imaanay soo dadka ku soo booqanayo waxay ku xiran tahay meel ay ka imaanayaan marka dadka haday ka imaanaan Soomaaliya America iyo Canada iyo Netherlands haday ka imaanayaan waxa weeye aragtida bas waxa weeye lacag badan ay ku qaanaysa laakiin wadamada kale oo aad u hooseeya hadda waxa arkaysaa qaybta hadda hoos joogno waxa arkaysaa inay tahay xayisiin in hadda meeshan xayisiin hadii midka hadda aan iska ka noqono hadda midkan hadaan ka noqono leesikaas aan ka noqono waxa arkaysaa waxaan hadda arkaysid inay xayisiinta hoostaan noo yaalo qaybtan noo taala get start blue hostigan waa xayisiino waxa arkaysaa blue host watana waxaan waa blue host waa meelaha waxa weeye they normal host waa host mid kugu sameynayaan waa ay ka laga gataa waayo waxa arkaysaa bishi waxa weeye qofka website u baahan bishi $2 bar iyo waxayna ayaga marka ku manage gareynayaan oo ku heena datadan ayaga ku heenayaan hadii kulli aqoon dad u leedahay VPS alla jiro oo hadda meesha hostingkan shared hosting waa mid 2.5 2.95 kol $2.95 senti waa adi ugu yaraan $3 weeye waxa kale oo jiro VPS na waa jira VPS waxa weeye waad gadanaysaa ayaga laakiinse kuma hosting gareynayaan adiga waxa weeye waxa la yiraahdaa virtual private service la yiraahdaa VPS tan oo hosting kaase hadii saasna aad rabtid oo PHP da adiga wixii dhan aad leedahay isafaaga bas ku sinayaan adiga PHP ga waxaan maala waxaanaysaa PHP waxa la yiraahdaa waxay ka kooban tahay MySQL iyo SQL waxaas ka kooban tahay waa taas waa goonideeda waa code bay hoos tagtaa taas waa goonideeda hadda inaan ka hadalno diyaar uma nihin marka qaabkaas marka lacagta looga sameeyo soo hadda meeshan create and go meeshan waxa weeye waa website kaleeto oo Soomaali ma lahan waa dad kaleeto Islaamka kale oo United States laga leeyahay arkaysaa luqadda Ingiriiska ku baxa waxa arkaysaa 559.18 ya bounce rate oo masha Allah fiican asagana hadii aan ka noqono ayaga waxay soo bandhigaan calaabil intay sameeyaan soo bandhigaan dadkan waxa weeye cobble waa nin inactis sida background kaaga muuqato waa nin inactis weeye marka waxa arkaysaa in hadda naag meesha fadhida ninkan meesha ku qoran marka 81 ay ka sameeyaan baamaan way soo bandhigaan bilii hore taa waxa weeye hadda gadaal u sii raacdid about ko hadda ka sii raacid ama macquul in aad aragtid ayagoo soo bandhigay mar walba oo waxay soo bandhigaan bil walba soo bandhigaan aan ka tagna kaas soo midkan waxa la yiraahdaa website kale waayo Soomaaliya sagana dhacda la yiraahdaa dhacdo xayisiimada aan ku sheegay waa kana ayadoo la saaray hore video aan midaan ka sameeyay kulli hadii aad rabtay video san hoosadka maxalla qaybta san ku dhigi doona qaabka loo sameeyo baalaan baana snack watan ka hadlaynay qaabka loo sameeyo horaan uga hadlay hadii aad u baahantiin inaan full course aan ka soo sameeyo aydan dhamaanan oo anigu hatta aan ku dhomas gareenayo website kala jiro aniga aan leeyahay demonstration meeshan ku sameyn karaa halkaan toos in kugu tusi karaa anigoo saaraay meeshan waxa meeshan hadda wada saaran anoo wada saaraay yaan ku tusi karaa marka hadii u baahantiin hoos qaybta commentiga noogu reeb wixii aragtidaada soo inta u baahan tahay full course aan ka soo sameyn doona insha Allah ta'ala arkaysa qaybta u badboodayso waxaan dhan xayisiinta marka laba kale midna waxa weeye adiga saarana midna waxa weeye oo qofka lacag ka qaasta iyo sell space space la yiraahdaa qof waxa la yiraahdaa AdSense-ga ku gadaa bishi $50 ka qaada ama $60 hadba soo ku heshiisiin marka waxa leedahay meesheeda aniga website-ka intaas qof ay imaado maadaama intaas qof ay imaadana intaas kulli ishooda ku dhacaysa marka waad u xisaab ahaan baa ugu dhufan lacagna intaas uga qaadanaysa okay hadaan u gudo galno qaybta kale
qaybta kale waxa weeye waa Google AdSense waaye oo lacagta ayada looga sameeyo hadda website-kan Google AdSense kulli inuu codsado ma umaleen oo waayada meesha ma arko Hormuud iyo Telecom arka kulli waxa weeye si gacan baa lagu saaray oo ana si ma sha Allah loo saaray haddaan ka tagno midkan qaybtan kaleeto oo Parentin asagana waxa arkaysaa oo over 10 million iyo website-kan imaadan waa Parentin dadka aad u jecel micnaha Parentin waaridka kulli hadda xumeena ma jira umaleen ay kaleeto website dhanka waaridka ka sheekeeyo kulli mid aadna waxa ku noqon kartaa micnaha maskax fur haddii ay u baahan tahay qaabka loo sameeyo website-ka naftirkiisa loo sameeyo oo min bilow ilaa dhamaadeen waa kula soo wadaagi karaa oo waayo codsigaada ku xiran tahay inaan kasoo sameeyo website anigoo abuurayo oo lacagtaana bixinayo $3 wax dhiman anoo bixinayo calaa bilna waayo wuxuu leeyahay markii aad u bixinayso calaa bil lagu xisaabinayo 12 bilood gadan kartaa 24 bilood gadan kartaa 36 bilood gadan kartaa waayo ayaga inta kugu sheegay waxay ku leeyihiin 36 month batamki bixin kartaa oo regularly inta mas laga qaadaya marka taasna waa ka sameynaya hadii micnaha waxa weey aad u baahan tahay qaybta commenting ayada noogu reeb marka Parentin-kan website-kan website aad u weyn waa 10 million soo boqon isku wada dareemi kartaa waxa hadda korkana ishan ay qabanayso waxaan waa ad waa xaysiin oo arkaysa xaysiinta qaybka meesha Google oo arkaysa ads by Google waxa weey ayaga lacagta waxa ooga sameynayaan adskaas marka aadska marka waxa weey kaliya qaarkood xaysiimaha kala yihiin xaysiimaha website-yaha iyo xaysiimaha ku taqaanid YouTube ku taqaanid iyo ku Facebook waa kala yihiin xaysiimaha waxa kala jira skippable ad iyo non skippable ad display ads waxyaalo badan kala jiro CPM ay kala leeyihiin iyo CPC kala leeyihiin kaasna waa goonida ayadana waxa weey waa mowduuc kala kuma dhaxdarin meeshan kulli wax walba hadda afkaan ka sheega baahida haday jirto qaybta commenting ka ogaan doona ayadana waxaan ka sameyn doonaa video ayada kaligeed ku taxalluqo insha Allah taala marka hadii hadda hoos aan u socono arkaysa waxaan qoraale iyo waxaan xayisiin isla socdo marka xayisiinta marka kunka qof oo imaada imagine kunka qof oo imaada yaa ayaka loogu xisaabinaa ba 1000 loogu xisaabinaa marka Google AdSense marka waxa weey Google AdSense kaligeed ma jirto oo waxa jirto media.net jirto waxa kale oo jirto Izoic mid la jirto way kala badan yihiin mid hadda ugu lacag badan waa Izoic ugu lacag badan sida la sheego hadda kullu soo baxday inta kale waxa weeye inta kale way iskaga dhow yihiin oo Google AdSense iyo media.net iskaga dhow yihiin waxayna iskaga dhow waxa weeye kunki page fees kunki qof oo imaadaba $5 ay ku bixiyaan halka Google AdSense uu ku bixiyo kunki qof imaadana $4 wax noocaas ah meelaha iskaga dhow yihiin ku bixiyaan salaam maalin marka hadayba 10,000 maalin ku imaado waa dareemi kartaa umaleynaya inta aad ka sameyn kartid 100,000 waa ka sii badan xisaabta mad ku lufsanaysa milyan hadee noqotana xisaabta adiga noo xisaabinayo wixii xisaabe adiga noo xilsaaran malaha marka adiga daawadaha marka qaabka horta lacagta looga sameeyaa website-yada website dhisitaankiisana aad u sahlan yahay oo waxa weey in website dhiso wax weyn ma noqonayso waa website marka waxa la soo gudbiyaa maqaalo baa soo gudbinaysa qaab ragga sidaan soo qoraan maqaalo soo gudbin kartaa waayo meeshan caasimada waqti badan ay soo joogtay oo waxa weey cabaar bay hawada ku jirta wala wada bartay adigana hadii aad maxallaha ku soo biirtad space-ka hadda ku soo biirtidna adigana waa lagu baran doonaa waayo wax walba waqti qaataan wax walba waa barasho weey marka hadda marka news hadii hadda marka micnaha qof xoogaha luqadda yaqaan tahay oo English taqaan ama hata Soomaali bas la garanaysid website inta hagaagsatada ku soo gudbin kartaa war saad ku heli lahaydna waa iska sahlan waayo wararka waxa weey dhagtan baa ku dulaasho warka meel kasto yaala waxa weey suuq marka soo kacay daqiiqada u fiirinaysa meelaha marka 5 post maan kada soo gelisid oo maxadad kugu xiran daawa maxalla ku imaanaya marka dambe gadaal laga barto oo bas waxa weey marka dambe heer waxa sameyn kartaa Google markuu qof ku soo qoro Google imaado oo dhacmal wararka maanta oo dhaho waxa laga yaabaa in aad xitaa lagu soo bandhigo oo Google ku soo hormariyo oo waxa jirto domain authority wax la jiro oo macnaha uu ku soo sameynayo kulli ayadana waa goonideeda waxay u baahan tahay video gooni ayadana marka so far marka hadii wixii aan sameeyay ay tahay waxa aad ka heshay kusoo bir channel-ka subscribe sar video-gana like sar si dhalinyaro badan u gaaro website-yada waa qaybta ugu badan oo lacagta laga sameeyo waan ku celinaa warkaas website-yada meesha ugu badan oo lacagta laga sameeyo weeye hadii marka website aad rabtid inaad sameeysid website-ka waa very easy in la sameeyo video-na waa ka soo diyaarinaya mustaqbalka insha Allah taala qayb kale jirto ayadana free aad ugu xisan kartaa jirto oo waxa weeye inta ugu horeyso ku barbaran kartid inkastoo ay fiican tahay
blogspot jiro media dot waxa jiro .net jiro meelo badan baa jiro oo waxa kale jiro Quora jiro meelo badan jiraan kuwan ku sheegay kana waa media.net meeshan waa medium.net oo kaas oo ka ciwaankeeda medium.net weey hadii aad rabtiin inaad macnaha balkan intuu traffic helaayay aad ogaatid qaybta kore ku dhufanaysa oo hore aan kugu sheego similar web oo arkaysa balkan intuu waxa weey 200 million oo hela hadda hoos u soo dhacay markuu hadda soo dhaco wuxuu noqonayaa 183 million iyo ala 1 month bishi bas imaado meel kale la yiraahdo Quora hadna iyadana hadda u baahan tahay Quora watna iyadana blog post jiro marka mar raba inaan dheereeyo video waa ku soo beeri kartaa wax walba lacag ka sameyn kartaa qaabkaas marka assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh